الله الرحمن الرحيم وعشر كيني صدحات كوساب سنة الممنوع من الصرف أو أنه وسو وريجني الممنوع من الصرف لعلتين marka waxaynu ku jiray الممنوع من الصرف لعلة واحدة halka hore ممنوع من الصرف لعلة واحدة waxa aynu ku soo qaadin marka laba qaybood alif tanis iyo siiqatu muntahal jumuc imkana waxaynu qaadan doonaa qayb kale oo ay ciladu tahay laba cilo oo oo lix nooc ah waxa weeyaan al alamiyatu wa tanis baynu ku bilaabaynaa ismigu wuxuu mamnuuc min sarf noqdaa oo kale marka ay laba sababood kulmaan sida halkan ku aragtaan waxaynu aragnaa al alamiyatu wa tanis markaynu al alamiyatu aynu qaada dhigno ama aynu ka sheekayno al alamiyatu waxa weeyaan ismiga oo calamkana waxa la yiraahdaa magac kasta oo ama dad leeyahay bil aadan amba meel lagu magacaabo ama qabiilo lagu magacaabo ama qaarad magacyada ay cid gaarka iska leedahay baa la yiraahdaa calam marka ay kulmaan hadaba labadan cilo ama labadan sababood waxa uu noqdaa ismigu mamnuuc min sarf waxa aynu haysanaa al alamiyatu wa tanis hadaba si aynu u fahano bal waxa aynu soo qaadanayna tusaalayaal ama amthila tuakidu aw tubayinu lana على الاسم الممنوع من الصرف لعلتين اما كلمته اما تصاليال انه موجينيا اسمه ممنوع من الصرف لعلتين waxaynu soo qaadanayna ciladii koowaad oo ahayd al alamiyatu wa tanis inuu ismigu calamna noqdo muannasna noqdo tusaalaha aynu soo qaadanayna waxa kamid ah jaat fadimatu كلمة أينو مركا أقول لنا هاي أما أينو سعنا أما ما أنت برش أينو براننا وحويان كلمة فاضمة كلمة فاضمة مركا إنه قاعد إنه وحينو أركينا إن كلمة دنت هاي كلمة علامة أو قبل هذا مجعية وعلم يدا إسكاله مركا وحينو هاي سنة اسم جان مركا كواد واسم علامة وياه مركا وعلم يهي حتى نوع اسم مؤنث ما ها اسم مذكر أو وحلا ير هذا اسم كمؤنث waxa lagu gartaa calaamad loo yaqaan calaamad tanis marka calaamadii dhidignimada waxa muujinaya imika taadana muujinaysa marka waxaynu leenahay jaat fadimatu ismigani waa ismi mamnuuc min asarfi sababta uu mamnuuc min asarfi u noqdayna waa laba sababood awgood ama dartood sababta koowaad oo in kelimadan tahay kelimad calama oo magac qof ah iyo in ay tahay kelimadani kelimad muannatha ta'niifkeegana ay muujinayso علامات لو يقان علامات التأنيث أما تاء التأنيث مركا اسمه مؤنثكي أما وحو نقدا مؤنث لفظا أما وحو نقدا مؤنث معنى مركا وحو نقونا يا أما مؤنث معنى ولفظا نقدا يمكن فاطمة حق اللفظ كلمة مقالهان وديدي وحا أين تستانا وديدي وحا كل صواب هذا كلمة مذكرة حق معناها لكن حق اللفظ أما مقال كمؤنثة وحطينا نحن حضر أسامة وكلمة ممنوعة من الصرف سببتنا وامحي كلمة دني وانا علم ومقع قف وانا مؤنث علامات أي كل ما تبع تا مربوطة أما تا تأنيث اسمه لكن مقالها نبو يهي مؤنث معناها وحين تصيا كلمة لبا مركا ولا سرعية وحكى له إيمانيسا إنه اسم مؤنثكي ونقضوا مؤنث حق معناها أون أنا علامات لديك ماشي كموقن سيدا غابت زينب وحنا هاي سنة زينب إن أي تهاي كلمة علامة وايو ومقع قف وحكلوا أي تهاي كلمة مؤنثة وايو مقع زينب وحلو بحياون عدة لديك لو ما بحيو رجع مركز سيدا درادد لكن waxa aan xambaarsanayn wax calaamada oo muuqata oo inay dhidigtayna tusaya marka calaamadeedu waxa la yiraahdaa waa calaamad xagga macnaha ah oo ismigan wuxuu ka dhidig yahay xagga macnaha marka inuu saa u kala saaray ismiga mamnuuc min sarfi lil alamiyati wa ta'nis waxa uu kala baxaya ismu muannath lafdan wa ma'na inuu noqdo shaygi xagga lafdigana uu muuqaal ahaan ayna tusayo muannath xagga macnahana muannath ka yahay ama inuu xagga muuqaalka uu muannath ka yahay oo xagga macnaha mudakar ka yahay iyo in aanu muuqaalka muannath ba ka hayne xagga macnaha uu ka muannath yahay ismiyada marka aynu soo aragnay oo dhamaanteed oo wada faacila waxa ayna tusayaan inay marfuuc yihiin laakiin waxa aanay qaadan wax loo yaqaano damateenkii ama tanwiintii jaat faadimatu حضر أسامة غابت زينب
haddii masalan lagu weydiiyo kasoo saar bal ismi mamnuuc min asarfiga kelimadaha ama jumladaha lagu siiyey waxaad abaaraysaa marka koowaadba kelimadaha aynu hoosta jeexnay ama calaamadahan ku dhamaanaya calaamadu ama ha muuqato ama ha maqnaatee waxay noqonaysaa markaa hada huwa alismu lmamnuucu min asarfi waa kaa ismiga mamnuuc min asarfi loo yaqaan sababta haddii lagu weydiiyo waa inaad laba sababood sheegto ko marka koowaad kelimadani liannahaa calam kelimadani waa calam oo waa magac qof waliannahaa mu'anasatun marka labaadna kelimadani waa kelimad dhidig sidaa daraaddeed waxaad leedahay hada ismun mamnuucun min asarfi licilatayni waxa weeyaan lilcalamiyati waxa loo yaqaano iyo wataniit baa la odhanaya haddii aynu sii wadno oo aynu ka guurno marka ay marfuuca yihiin oo aynu u guurno marka ay mansuubka yihiin waxa aynu leenahay ra'aytu fadimata fatxad keliya waayahay xadara cafwan shaahadtu usaamata waayahay qaabaltu zaynaba hunaa maxaynu arkaynaa inuu ismigaas markii hore faacilhaa marfuuc bidamatin waaxida liannahu mamnuuc min asarfi hunaa waxaynu arkaynaa mar haddaynu ficil faacil haysano ficil faacil ra'aytu waa ficil faacil shaahadtu waa ficil faacil qaabaltu waa ficil faacil ismiga ka dambeeya hadi jeer wuxuu noqonayaa mafcuulun bihi mansuub bifatxatin waaxida ayay noqonaysaa xaaladii saddexaad baynu soo marin karnaa xabad kale aynu iska soo qaadano marartu waxaan soo maray bifadimata waxaynu arkaynaa inuu ismigaasi mamnuuc min asarfi yahay waxaynu iska ilaalinay halkaa hore tanwiintaynu iska ilaalinay ilaa halkaa aynu soo gaadhanay tanwiintaynu iska ilaalinay halka marka aynu soo gaadhnay marartu oo aynu ba soo gaadhnay badaas in ay xarfi jari tahay ismiga ka dambeeyana hadii jeer u baahnaa in la hoos dhabo laakiin aynu inagu iska ilaalina maxay alkisrata limaada liana hada ismun mamnuucun min asarfi ciladu waa maxay ama sababtu waa maxay waxaad leedahay ko liana hadihi lkalimata kalimatu calamin waa kelimad calama walianaha kalimatu muanasa waa kelimad muanasa ama waxaad odhanaysaa municat hadihi lkalima min asarfi lilcalamiyati wataniis iyada oo ay ugu wacan tahay inay calamna tahay muanasna tahay waxaa jirta xaalado laga soo reebay oo uu ismigii banaan tahay in la sarfiyo iyo inaan la sarfin xaaladaasina waa xaalad gaara waana kelimad saddex xaraf ka kooban oo dhexda reeban hadduu yahay waxa muanaska kelimadda maxaa kamid ah hindu waa ismi saddex xaraf ka kooban xarafka dhexda ku jiraana uu reeban yahay haddii aad aragto ismi muanasa oo calama oo dhexda oo saddex xaraf ka kooban oo ka dhexda ku jira uu reeban yahay kelimadda marka aynu soo marinayno xaaladahan laba xaaladood ayaa inoo banaan in aynu sarfino iyo inaynu mamnuuc min sarfiga ku daro marka aynu ku darano mamnuuc min sarfiga qaybtan horeynu isticmaalaynaa waxaynu leenahay jaaat hindu markaynu leenahay waa ism mamnuuc min sarfi waayo tanwiinta muu qaadan ra'aytu waxaan arkay ra'aytu hinda marartu bihinda wala ufiirsa hadda ismigaa hinda markaynu soo marino xaaladihiisii jaaat hindu waa faacil marfuuc bidamatin waaxida liannahu ismun mamnuucun min asarfi tanwiin ma qaadanayo ra'aytu waa ficil iyo faacil hindana waa mafcuul bihi mansuub bifatxa waaxida liannahu mamnuuc min asarfi ma qaadanayo isna halkaa tanwiin marartu bihinda baa xarfu jari baynu nihi hindana waa ismun majruur halkii ay kisre ka qaadan lahayd bay fatxo qaadatay liannahu ismun mamnuuc min asarfi xaaladda labaad waxa aynu leenahay ee ay noo banaani inaynu kasoo qaadno inay tani masruuf tahay oo inagoo intaan isticmaalayna ayaynu leenahay jaaat hindun ufiirsa bal imika jaaat hindudii aynu haysanay maxaynu ku bedelnay hindun waayo ismigani shuruud gaar u leeyahay waa ismi saddex xaraf ka kooban oo dhexdana reeban ismigaa kasta oo dhexda reeban oo saddex xaraf ka kooban oo calama oo muanasihi waxa inoogu banaan inaynu ku daro qaybta mamnuuc min sarfiga iyo inaynu ku daro qaybta masruufka ah jaaat hindun ra'aytu hindan iyo marartu
bihindin balu fiirso labada maxaynu haysanaa hindun tanwiintii bay qaadatay jaaءat hindun waa faacil marfuuc bidamatin marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratun cala akhirihi waqad akhadat tanwiina tanwiin bay qaadatay liannahu masruuf ra'aytu hindan taasina waa mafcuul bihi mansuub bifatxa waana masruufa haddii lagu maxay masruuf tahay waa ismi saddex xaraf ka kooban oo dhexda reeban ismi kasta oo saddex xaraf ka kooban oo dhexda reeban laba xaaladood ay noo banaan inaynu marna ka dhigno mamnuuc min asarfi oo aynu tanwiintii iyo kisradiiba meesha ka ilaalino iyo inaynu ku darro waxyaabaha masruufka ah ee tanwiintana qaata hoos dhagona qaata ismigii markaa almamnuuc min asarfi lilcalamiyati wataniithana intaa ayuu ku kooban yahay waxaanaynu halkaa kasii anbaqaadi doonaa amba aynu kasii wadi doonaa mustaqbalka dhow insha allah casharkii kale ee kusii taxnaa 6dii qaybood ee labada sababood qaadanayay ama labada qaadanaya cilo intaa ka dambeeya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh